waxyaabaha ku saabsan akoonada la jabsado waxyaabaha keenay iyo arinta ku saabsan Twitter oo la tacaalaysa inay dib u soo celiso akoonada mas'uuliyiin caan ahaa oo la jabsaday xilli lagu doodayo in shaqaalaha Twitter ay wax ka og yihiin arintaasi balse wali dadaal ayaa socdo sida xogihii la baahiyayba lagu sheegay Jabir Isxaaq oo arrimaha tiknoolajiyadana aad nagula qaada dhigo Jabir arrimahan ku saabsan jabsiga waxa lagu ogaa Facebook oo caan ku ahaa in hackers ay soo weeraraan hadda wuxuu u dusay Twitter-ka waliba maalmahan sanadahan ugu dambeeyay aad baa looga cabanayaa arintaas bal maxaa isleedahay akoonada noocaas oo kale oo heer madaxeed xataa gaarayo waa la jabsan karaa inay dhalin karaan nasrina aad u mahadsan tahay midda kale Facebook iyo Twitter waxa laga sheegayaa macnaheedu oo xaqiiq ah in akoono badan oo siyaasiyiina iyo dad ganacsatayaal iyo dadka dunida ugu taajirsan laga jabsaday bartiisa akoonka inta ugu badan waxyaabaha lagu saadaalinay inay waxaan sheegi doonaa ay sababeen in la jabsado akoomadaas iyo cidda laga jabsaday iyo dadka su'aasha isweydiinayaan oo ah waa maxay Bitcoin Twitter ma ku leedahay gacan jabsiga loo geystay dadkaasi laga jabsaday akoonadooda markii ugu horeyso shirkadda Twitter ma ahan markii ugu horeysay si rasmi ah looga jabsaday ciwaanada caadi leeyihiin laakiin taariikhda waxa dhacday markii ugu weyneed akoono caadi la jabsado dadka ugu badneed laga jabsado akoonadan dadka laga jabsaday waxa ugu ninka ka dambeeyay oo looga shaki qabo waa nin la yiraahdo waxa la yiraahdaa ninkan Brazilian online oo ku shaqeysan jiray marka magaciisana wax la qariyay oo waa nin dalka China ka soo jeeda waxaan u shaqeeyaa shirkadda ama maxaa la yiraahdaa hay'adda ama markaasi dakhliga adduunka aruurisa oo Bitcoin waa meel waa lacag adduunyada dollarka sidoo kale macnaheedu waa dollar shilin Soomaali lacagaha caalamka ka mid tahay Bitcoin waxa lagu sameeyaa waa kombiyuutaro iyo internet xawaare sare leh shilimaada aruuro shilimaadkaas lacag noqdo halkii Bitcoin waxa lagu iibsadaa intaas oo kun oo dollar ma ahan wax ciyaar ah oo macnaheedu lacag aad u weyn waaye marka shirkadda Bitcoin ayaa hadda ganaax dusha looga riday sababta iyadana lagu eedeeyay in ay ka dambeyso sababtoo lacagihii markaas dadka dalbada qaarkood waa loo soo diray oo hadii marbo waxa la leeyahay hadii lacag la soo diray Bitcoin waa ay ka dambeysaa nasroy waxa kale oo jira waxay tahay su'aasha dadka isweydiinayaan waa maxay ciwaanka Donald Trump madaxweynaha Mareykanka maxaa loo jabsani waayay oo ciwaanadani kale loo jabsaday waa su'aal laftirkeeda ayada meesha taagan oo waxa la leeyahay hadii marba Donald Trump oo internetkiisa aad macnaheedu u isticmaalo oo nin mar walba wax soo dhigay hadii la jabsan waayo waxa la leeyahay waxa ka dambeysay hay'adda Mareykanka CIA-da oo la leeyahay waa ay difaacday ama wax un ay ka ogeed in la jabsado laakiin su'aashaas waxa burinaysa dadka laga jabsaday ugu badnaan inta ugu badan waxay ka soo jeedaan dalka Mareykanka waa laba su'aalood iska hor imaanaya sida lagu jabsaday waxaan leenahay waxa jabsaday horta khubaro ku takhasusay burcada loo yaqaano internetka oo aad ugu yaqaano macnaheedu jabsiga internetka waxa lagu jabsadan waxa lagu tilmaamay saddex waxyaabood oo kala internet wave in lagu sameeyay oo in hawada internet loo soo galiyay kadibna waxa la yiraahdaa laga jabsaday eeda ugu weyn waxa lagu saaraya dadka iska leh oo markaasi akoonadooda inta ugu badan maadaama cudurka COVID-19 uu jiro in akoonada ugu badan markaasi COVID-19 saameyntiisa dhibaatada iyo waxaas u geystay oo kala tacaalayeen dadka marka COVID-19 ayaa loo soo dhaxmariyay ayaa la leeyahay in COVID-19 fariin ka socoto kale in qofka loo soo diray markaasi oo aqbalaad ka bixiyay sidaasna waa lagu eedeynaya mid kale waxa lagu eedeynaya gacan saddexaad inay jirto oo qarsan oo sida hadda markii ugu horeysay sheegayso in shirkadda Twitter ay ka dambeyso in la jabsado ciwaanadan gaarka ah su'aashaasi waxa saddexdaas qaab ayaa la dhigi karaa waa loo jabsaday marka maxay tahay saameynta ka dhalanayso jabsiga oo dadkan ay ku abuurayso shirkadda naftirkeedana laga yaabo inay sumcadeeda hoos ugu dhacdo marka saameynta ugu horeysa ka dhalanayso waxay tahay in dadka marka ugu horeyso fariimaha kaga imaanaya Facebooka iyo meelaha internetka ee COVID-19 ka la xiriiro inay aad isaga taxadaraan oo yaraato dakhligii lagu bixin jiray ama dakhligii ka soo xaroon jiray fariimaha COVID-19 ka oo laga dareemi doono durba saameyn xoogan oo fariimahaasi oo saameeyeen teknoolajiyada caalamka dhan walba
waxaa kale ay saameynaysan waxay tahay shirkadda Twitter oo iyo shirkadda Bitcoin shirkadda Twitter talaabada ugu horeysay ay qaaday waxay ahayd inay cibaanada gabi ahaanba joojiso ee hawada ka saarto laakiin taas maysan dhalinin inay cibaanada dib shirkadda Twitter ee u soo howlgeliso cibaanada dadkii lahaa ugu wareejiyaan ninka ugu horeeyay intii laga jabsaday dadka ka hadlay waxaa jiro fanaan oo Afrika ka soo jeeda oo ku tilmaamay wax la yaab leh xitaa inuu garan waayay inuu wax la soo dhigay xitaa Facebookiisa Twitterkiisa oo asig on loo sheegay dadka ugu badan ee laga jabsadayna waa dadka ugu taajirsan ninka ugu taajirsan dunida Jeff Bezos Bill Gates iyo Lionel Messi oo naqday qofka ugu dambeeyay laga jabsado waxa kale oo laga jabsaday milkiilaha shirkadda SpaceX oo cirbixiyanada iyo duulimaadada hawada aadaan ninkaasna waa laga jabsaday gunaanadkii wuxuu noqonayaa in qof walba Facebookiisa mar hadii shabakada internetka ku jirtidba xaaladaada aysan sahlaneen oo hadii mar dadkaasi laga jabsaday in qof walba dadka kalena isaga fududaan karto ugu noqonayaan laakiin waxa aan sheegay waxay tahay wali xalka noqon kara xalka intii la gaarin waxa aan sheegay waxay tahay wali kamaysan dhicin shirkadda Facebook jabsi intaan la xoog leeg oo dad caana loo geystay kamaysan dhicin laakiin Twitter waa markii ugu horeysa ka dhacday in dad badan loo geysto laakiin dad caan ama fanaaniin ama dad sports ku jiro waa loo geysan jiray waxa sababayna waa shirkadda Bitcoin oo lacagahaas kala sarifta iyo nin Shiineys oo magaciisa laga gaabiyay oo dawladda Interpolka adduunka gacanta ku hayaan baaritaan lagu wado